madaxda cusub ee loo magacaabay inaan mas'uuliyaddii aanu dalka iyo dadka u haynay aanu maanta ku wareejino. waxaan leeyahay soo dhawaada. warka horey baa loo dhameeyay laakiin in yar baan dul marayaa. xogta wasaaradda horey baa loo soo gaabiyey. agaasimaha guud iyo wasiirada ayaa maartay dul maray si fiican u soo gaabshay. laakiin haddaan in yar dul maro waxaa maanta mar labaad sharaf weyn noo ah inaan madax cusub ku wareejiyo hoggaanka mas'uuliyadda iyo shaqada baaxadda weyn ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay u hayso ummadda reer Puntland. wasaaraddu waxay runtii soo taxnayd ilaa 20 sano oo wasaarad qaangaadhay weyn oo meel fiican maraysa. marka insha Allah waxaan aad iyo aad maartay runtii aan ugu faraxsanahay maanta wasiirada cusub oo runtii waxa weeye dad bahda waxbarashada weeye dad tacliin la weeye oo xul ah. saddexda maartay runtii wasiiro na bedelaya nasiib wanaag waxaad u timaadeen dad shaqaale ah oo runtii shaqaalaha ugu fiican ugu tayo badan runtii muddo badan maartay waxbarasho galay tababaro galay maanta runtii waxaan u maleynayaa shaqaalaha ugu fiican ee wasaaraddu haystaan weeye. haddii quruxda aad arkaysaan wasaaradda laga sheegayona laf dhabar runtii iyaga u ah. marka runtii haddii labadaas way salaan anigu waxaan leeyahay wasiirada cusub oo rag aqoon-yahana iyo shaqaalaha wasaaradda oo runtii aad iyo aad aqoon iyo xirfad isku darsad hadday salaan waxaan leeyahay cirka u sii baxaysaa. waxay noqonaysaa wasaarad aad iyo aad u shidan. marka runtii ku soo dhawaada shaqaalaha iyaga ah. haddaan in yar dul maro wasaaraddu waxay ka kooban tahay xafiisyada wasaaradda, wasiirada, wasiir ku-xigeenka, wasiiru dowlaha, agaasinka guud iyo 10 waaxyood iyo qaybta wax soo saarka. sidoo kale wasaaraddu waxay xarumo ku leedahay dhammaan 9 gobol ee Puntland ka kooban tahay iyo dhammaan degmooyinka Puntland. waxayna ka hawlgashaa dhammaan tuulooyinka iyo degmooyinka Puntland. waxaana wasaaraddu waa wasaaradda ugu ballaaran runtii wasaaradaha Puntland bay noqonaysaa markaa. haddaan in yar hoos u dego tirada macallimiinta ka hawlgasha goobaha waxbarashada Puntland waxay gaarayaan 9,743 macallin baa ka qayb gala. waxa laakiin intaas bayroolka ku jira 2,117. ardada dhigata Puntland marka la soo gaabsho waa hadeer waliba sanad kastaba waa saasay u sii kordhayaan. laakiin maanta waxa weeye 211,720 arday. sida dawlad socotaan aan yar halka isdul taago waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay annaga waqtigayagii oo kale gabdhuhu kuma jirin reer bay haayeen. dhowr goor waan ka sheegay 700 arday baad arkaysaa ay ku dhex jiraan 3 gabdhood ama 5 gabdhood. marka runtii maanta alxamdulillah rabbil caalamiin baaxadda ardada waxa badiyay waxa weeye waalidkii oo kasbadiisu isbedeshay oo gabar iyo wiil si isku mid ah wax u baraya. hadeer waxa weeye dadka aan idin sheegay 46.4% weeye. adigu waxa weeye ilaa 7 bay marayaan boqolkiiba gabdhuhu marka ku soo wiilasha ku soo dhow yihiin. marka runtii baaxadda ardada waxa badinaya waxa weeye debariga hore wiil kaliya wax la bari jiray laakiin maanta waxa weeye gabdhihii baa wax la baray. iskuulada markaad kulmeed ku sameynaysan waa yaabaysan raggii hore. Cabdullaahi Rooble iyo marka iyagu marayaan waa farxi aad bay farxi doonaan waayo ragayga odayaasha markaan anagu macallimiin tahay gabdho ma jirin runtii. laakiin maanta markii aad iskuulada martaan aad iyo bad farxaysaa waayo ubadka wax baraa la yiri lama oran wiilasha wax bara gabar iyo wiilba in wax la baro. that's why maartay Puntland runtii ay ardadeeda
حق باهنتا أياد ياد كرو كعيسو سيدا الله سبحانه وسارده صدح تير إلى هاي وادسيه الحمد لله رب العالمين تيرر كوجه ريوح لقى إيجا وسارده حب كذا من دسيه سياسة هذا حرر كذا شروع هذا آديات بودسيه وايو هدادا كوا سمين وسارده هجد يد وحمان يساي وحين نقول يسوي وسارد جروب ميل وحسكا ديستو منهج دونا اسكا سميستو وحو دونا سمين لكن runtii markii ay system ku degsan yahay aad iyo aad bay fiican tahay marka runtii wasiirada xusub waxaan ugu bishaareynayaa waxa tibaadeen qodobka koowaad oo ah in siyaasadaha iyo xeerarka ilaa xadaanada ilaa jaamacadda uu degsan yahay waqtigeedii wada taalo waa uu la aqbalay gareynaya qodobka labaad waxa way xagga baahintu waa dhisan yahay waa tahdid maartay rag iga horeeyay oo dhan waa ka wada sheekayeen waxa way dhismayaashu markii hore waxay ku saabsanaayeen inta laamiga ah laakiin maanta tuulooyin badan ma mari doontaa runtii xeebaad maraysaan oo ala la tagi jirin kal hore kaliya baxal maliya 230 iskuul baan ka dhisnay xeebaha u fiirso marka runtii waxa way xeebuhu meeshii ugu horeysay bariga ilbaxnimada ka soo bilaabatay dadku markay inuu soo kaco oo xeebaha soo bandhiyo madaxaasha marka runtii hadda tacliintu markay ardayga u dhawaato goobaha tacliintu de marka waxay noqonaysaa meel aad iyo aad u fiican bay noqonaysaa marka baahintu number 1 dhismayaasha iskuulada oo la dhiso oo tuulo iyo magaalo weyn la gaarsiiyo quudinta caruurta la siiyo iyadoo door weyn ka ciyaarta oo la siiyo meelaha danyarta ay badan tahay qodobka saddexaad fiiga caruurta laga bixinayo oo meelaha magartay aan income lahayn ee xoolo dhaqato laga yaabo tuulooyinkooda inay tahay marka loo badiyo runtii aad iyo aad bay fiicnaanaysaa arrimahaas aad iyo aad bay u dhisay baartay ay xagga baahintu iyana waa qodobka labaad aad iyo aad bay u fiican tahay farxadna ma dhihi karo waxaan aad uga ila culus xilka culus aan la wareegnay iyo mas'uuliyadda ballaaran ee waxbarasho oo aan la wareegnay waxaan runtii la wareegnay oo saaka oo dhan ku dhex jirnay wasaarad baaxadeedu ballaaran tahay mas'uuliyaddeedu ballaaran tahay dhisan dhinac walba ka dhisan waxaan rabtaa ilaahay ka baryaynaa inuusan nagu ceebeen uusan nagu fashilino meeshaas ay joogto meel ka fiican aan gaarsiino tiimka wasaaradda wareejiyeyna dhowr sano ama sanad ha noqoto ama 5 sano ka bacdi ha noqotee meesha ay dhigaan meel ka fiican inaan dhignan ilaahay ka baryayaa waa ogtihiin rasuulka diintan islaamka waxay ku soo degtay oo ugu horeysay risaalada samaawi weeye waxbarashadu iqra bay ka bilaabatay diinteenu waxay ku tusaysaa ahamiyadda ay leedahay waxbarashadu ay ummad u leedahay ama ay dad u leedahay ama ay dal u leedahay aqoontu waana runoo dawladaha hadda kacay iyo ummadaha hadda hormaray waxa asaas oo ah saldhigna oo ah knowledge-ka ayadaa lacag ah oo economy ah oo knowledge economy baa la dhahaa badanaaba haddii la dhiso ayadaa waxay tahay natural resource ama resource-ka dal leeyahay aqoontaas ugu muhiimsan iyo qofka bani aadamka ah ee wax la bartay oo la maalgashtay baa ugu muhiimsan wasaarad ka qiimo badan runtii oo aan iman lahayn ama aan ka shaqayn lahaynna ma jirto xukuumaddu hadda ogtihiin xukuumad walba ama qolo walba timaada slogan bay leedahay oo halku dhag bay leedahay oo nabad iyo nolol baa jirta magacyo kala jira xukuumaddu maanta xilka la wareegtay tayeyn iyo tiigsi baa u ah halku dhag waxaan jecelnahay inaan tayeyntaas ay waxbarashadu quality-gu yani waa ka muhiimsan yahay quantity-ga 10,000 oo arday 20,000 oo arday in la soo saaro waxaa ka qiimo badan 1,000 arday oo run wax u baratay oo run yani tayo waxbarashada leedahay ka muhiimsan iskuulada badadeeda iyo tiradeeda waxaa ka muhiimsan tayada waxbarasho ee la ilaahay ku idmayo ay iskuuladaas leeyihiin waxaa muhiim ah macalinkaas wax dhigaya tayadiisa iyo noloshiisa iyo haddii alla ku idmayo dawlad package xiran package-kaas oo dhan inuu wada dhisan yahay oo aspects-kiisa iyo waaxyadiisa dhan ay dhammaystiran tahay heer tayo waxaa muhiim ah inaan tiigsanayno wax oo aan tiigsi leenahay ilaahay idinkiis aan dawladaha dariska ah hadda nagu hareeraysan mid walba markaad fiirisid kobaceeda dhaqaale 10 buu marayaa 10 dhibic intaas 11 waxaasoo dhanna waxaa saldhig u ah asaas u ah aqoonta inaan kala gaarno kala mid noqono